يا عبد الرزاق khaliif oo noqday haad geed waaye arrintaasaan doonayaa inaan isu taago aan bilaabaye cabdirasaaq khaliif waxaynu ogeyn inuu isku dhufsaday xisaab qaldan oo uu isaga iyo kooxdii ay ku wada socdeen dagaalka ee G21 ee farmaajo madaxda u ahaa ee isaguna gudaha u qaabilsanaa esta gudaha waxa uu ku fikirayeen inay ku najaxaan dagaalkan sababta ugu weyn ee ay dagaalka u rideen waxay ahayd ama isku haleynayeen ama xisaabta ugu weyn isku dhufsadeen in dawladda Itoobiya garab taagan tahay may galeenba mabay rideen dagaal way ka hortiin way beenowday cabdirasaaq khaliif waxa uu niyadda gashaday in liidarka ugu sarreeya ee hogaamin doona marka Somaliland dabada dhulka lagu dhufto ee ayagu ay ku guuleystaan sida ay qabaan inuu noqon doono ka hogaamin doono dhulbahante ee ugu sarreeya ee kursigiisa u sadqeeyay saasuu geliyay xisaabtu ugu jirtay aan idin xasuusiyay maalintii Somaliland iyo dawladda deegaanka Soomaalidu faraas ku taagtaageen ee Somalilandna qoraalka qortay ayaguna ay ka soo jawaabeen isla subaxii cabdirasaaq khaliif safar soo baxay Itoobiya isagoo isle maanta la isku dhufanayaayo halkaas wax kugu dhex jira wuu yimi Itoobiya sidii uu filayay si aan ahayn ayuu kala kulmay weji gabax buu kala kulmay in la yiraahdo sifo sharci darrad ku soo gashay naga bax buu kala kulmay in la yiraahdo kuma dhaxal kartid buu kala kulmay inay Somaliland dhinaca saartay dawladda federaalka Itoobiya ama ay isku xiran yihiin ayuu arkay maalintaas ayay isaga iyo kuwii kale ee xisaabta qadar isku dhufsadayba ay ka hoostay oo waska tiri oo tarta wareen wixii la isku geystay xisaab oo dhami waxay noqdeen qaar qaldan cabdirasaaq khaliif sababta ugu weyn ee suuro gelisay inuu dagaalku laascaanood ka dhaca buu ahaa reerkooda intii kaga jirtay dawladda iyo dalka ee daacadda u ahayd shaqaalaha ka ahayd golaha deegaanka ka ahayd maayarka ka ahayd ciidamada ka ahayd ninka ka saaray buu ahaa ee waxba idinma yaalaan tanaa guulaysanaysa tan ku dagaalama ee tijaabiyey ilaa mahad cambaashe inuu gacanta geliyo oo soo xiro geliyo ee uu ka diiday habeenkii markuu ay wada hadleen ee ku yiri lacag qaadu ka diiday subaxina weerarkii lagaga dilay askartii reerkooda ahayd dawladda ka tirsanayd ama ciidanka qaranka ka tirsanayd ninkaas waxa la wuxuu reebtay iyo wuxuu la haray ma jirto khaynal wadan dagaal galay oo xisaab qaldan isku dhufsaday oo cadow buu ahaa nin reerkooda u danaynayna muu ahayn waxaan ku caddaynaya inaanu ahayn dagaalkii ka dhacay buuhoodle wuxuu ahaa Malaysia dhulbahante oo jabhada iyo dawladda Somaliland ayuu dhexmaray dagaalkaas kii loo isticmaalay buu ahaa BM-ka qoryaha BM-ka wali ilaa hadda lama ridin dagaalkan laascaanood ee aan la dhulbahanta ka dagaalamayay ka ballaaran ee argagixisada iyo dadka kale ee gobolada kale ka yimi iyo kuwa xuduudaha ka soo tallaabay ka dagaalamayaan ilaa hadda BM looma isticmaalin waanu yaala kii loo isticmaalay maalinta ee Malaysia dhulbahanto jabhada qura ka dagaalamayay buuhoodle ee xoogga lagu muquuniyay cabdirasaaq khaliif minister buu ahaa hadduu dhulbahanto ka naxayo run ka tahay maalinta asilla kama naxaye ee dagaalka Somaliland lagu soo qaaday buu qayb ka ahaa gudaha u joogta leader baa tahay buu shiri maanta cid lu fadhiya waa haad geed waaye dagaalkii mid military ahaan lagu jabay siyaasi ahaan lagu jabay buu noqday kumaan baa ka dhintay dadkiisii magaaladiisii buu dumiyay haddii alla kuu roon yahay businesskiisii buu dumiyay ardaydiisii baa bala iskuula carruurtiisii dumarkiisii buu banaanka dhigay intii uu wada garanayay baa ku dhimatay wax la macaashayna ma jirto hal tallaabo oo la xoreeyna ma jirto marka ma aha waa nin maanta cid taagan siyaasadii baa timi waxa loo daba fadhiisto lagu daba feelay Dani iyo Axmed Karaash sanduuqii dibadda laga soo ururinayay ayagu ku dhacaya taladii ayaga la wareegay haddana kuwa wax ku kufsanaya magaaladiisii dadka ku leynaya ganacsatada reerkooda ku leynaya
وإسلا إيجهم عدلوا تاجين كاس شلي تولي waxay wada hadleen xogtaan haye ee boqolkiiba boqol xaqiiqda ku fadhida waxaan hubsan lama wadaaga cid waxay wada hadleen cabdiraxmaan ciro iyo deni baa la hadlay cabdiraxmaan ciro iyo ninka la yidhaahdo cabdirasaaq khaliif oo labaduba sacuudiga jooga isla dubay buu kala hadlay isla telefoonka ka dambeeyey waxaa la hadlay ninka la yidhaahdo isaguna xamse ee prime ministerka ka xamar soomaaliya labaduba waxay ku dirqiyeen inuu hargeysa tago lacag baa loo diray dad baa lagu samaynaya baa lagu yidhi gudahaasad ka dagaalami kartaa inuu buuqiga furayna inankii yaraa shalay hadlayey ee tantoomo ee waxaad ogtay ku hadlayey waa bilow qaar kaloo dambana waa hadli doonaa waxaa laynagu tijaabinayaa in laynaga caqli badan yahay oo ninka noocaasa nimankii dagaalka inagula jiray ay haddana inoo transfer soo sameeyaan oo inoo keenaan markii dagaalkii foolkaa laynaga gaadkaan waayey ee kii siyaasadda somalilan laga gaadkaan waayey kii khiyaamada ahaa ee laynagu dayey hore laynagu khiyaamay ayaa mar labaad dana laysku dayay waxaan uga digayaa shacabka somalilan iyo dowladdaba inaan arrintaa la fududsan inanka yaree shalay hadlay ee xildhibaanka sheeganayey in loo yeedho weeyaan maaha in loo jawaabo iyo in la aflagaadeeyo in loo yeedho weeyaan hal su'aaloo la weydiiyo kama jawaabi karo inankaasi wuxuu sheegay in madaxweynuhu beenaale yahay dowladda somalilanna argixisaan ay kula dagaalamayn laascaanood caddayn baa la hayaa waxa in heerkaa ku kalifay ee uu beenta uga sheegaya dagaalkaa dalkiisa ku socdaa waa qof raalli gelinayo lacag shilima usoo diray dowladdu sidaa ciidamadeedu ay u nafbaxayaan u difaacaysa dalka inay u difaacdo qaladka ka imanaya dadka ee saamaynta yeelanaya ee aan la dhiigbaxa ku ah dalka ee aan la qaadan karin ee aan dunyada oo dhan ka suuro geli karin ayaa muhiima kama dhici karta adduunka dowladaha yaalla waxaa ka dhacaya somalilan qof baa iska imanaya wuxuu doonaa buu iska odhanayaa waxaa buu noqonaya rool muudeen intii kalena waa ka qadayanaysa wax caadi ah waxay noqonayaan sharciga ayuu qofku xildhibaan nagu yahay haddii uu ka tallaabsado burburiyo dee ma aha waa in lagula saabtama sharcigii marka inagoo arkayna shuruucda la jebinayo ee lagu tumanayo iyo ee dalkaa tacabka badan galay ee cadowga badan le loo soo raacayo cadowgii dee waxa loo eeganaya aanu garan maayo hay-adaha sharcigu iyo kuwa amnigu iyo mas-uuliyiinta dowladdu dee inay dalka ku difaacaan sharciga weeyaan haddii kale shicib maamulayaynu noqonayna oo gacantaa la isula tegi waa in dowladdu hay-adaha ku shaqaliya ay doorkooda qaataan oo aanay ummadda isku daawan waxa soconaya wax la eegan kara maaha ninkaasina digniinta aan siiye waa mid xaqiiqda ku fadhida raadkeedina wuu bilaabmay ugu horreeyey